kulanti wanaagsan daawadayaal waa barnaamijkii qubanaha VOA oo si wada jir idin la socodsiinayaan anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan oo Washington joogta iyo anigoo ah Ridwaan Xaaji oo London jooga qodobada toddobaadkan aan barnaamijkeedii ku haynana waxa kamid ah muslimiinta degan Britain oo dawladda ka codsaday inay wax ka qabato heerka muslim nacaybka ee sii kordhaya kadib markii nin cadaan ah uu baabuur dardarsiiyay dad masaajid ka soo baxaya magaalada London warbixin ka hadlaysa saameynta qorshaha hubka dhigista ee dawladda Soomaaliya ay ka wado magaalada Muqdisho dalka Koonfur Afrikana xayawaanka dameerka ayaa halis ku sugan kadib markii uu kordhay ganacsi malaayiin dollar gaaraya oo uu Shiinuhu ku iibsanaya hargaha dameeraha qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idinku haynaa barnaamijka qubanaha VOA ee toddobaadkan muslimiinta ku nool dalka Britain ayaa dawladda iyo hay'adaha amnigaba ku boorinaya inay wax ka qabtaan heerka muslim nacaybka ee sii kordhaya kadib markii 24kii bishan nin cadaan oo xag jir ah uu baabuur dardarsiiyay dad masaajid ka soo baxay weerarkaasi oo dawladdu ay ku tilmaantay mid argagixiso waxa ku dhintay hal qof halka 10 kalena ay ku dhaawacmeen oo Soomaaliya ay ku jirto arrintan ayaa waxay walwal ku abuurtay muslimiinta UK degan haddaba weerarkaasi iyo walwalka muslimiinta waxaan ka wareysanaynaa oo stuudiyaheena London ku sugan Maxamed Sheekh Aadan oo ah xubin ka tirsan guddiga sare ee ururka muslimiinta Britain ee Muslim Association of Britain masaajidka Finsbury Park ee uu ka dhacay weerarkaasina kamida maamulayaashooda Maxamed ku soo dhawow VOA ugu horeyn sida ayuu weerarku idin saameeyay Falastiin Iimaan aad ba u mahadsantahay adiga iyo dhammaan bahda Voice of America qaybta Soomaalida run ahaantii si weyn ayuu noo saameeyay dhibkii ka dhacay magaalada London subaxnimadii hore ee 19kii bishan ayuu dadku markay ka soo baxeen salaadii taraawiixda abaar 12kii ay dhaaftay wax yar tahajjudna ay u diyaar garoobayaan ayuu maartay shil ku dhacay oo nin dadka gaari van mariyay waxa ku dhintay hal qof ilaa 9 qof oo kalena way ku dhaawacmeen oo macnaha badankood ay yihiin Soomaali maadaama oo dadka masaajidka ku tukada ay u badnaayeen dad Soomaali ah marka dhibkaas dhib weyn buu geystay kulligoodna waa dad muslimiin ahaayeen oo masaajidka ka soo wada baxay dawladda iyo diimaha kale ee dalkaasiba way cambaareeyeen ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa idin soo booqatay maxaad kala hadasheen mas'uuliyiinta dawladda oo aad ka codsateen run ahaantii markii dhibkaas uu dhacay isla maalinkiiba maartay dawladda xubnaha ugu sareeya ha noqoto ra'iisul wasaarada ama axsaabta mucaaradka wadankan iyo dhamaan xataa kaniisadaha dadka madaxda duqa magaalada way soo booqdeen way noo yimaadeen marka ra'iisul wasaaruhu waxay la kulantay dadkii meesha joogay ee muslimiinta ah ee hogaaminayay ummadda waxayna sheegtay inay dhageysanayso una tacsiinayso dhibkii meesha ka dhacana ay ka xun tahay oo uu yahay dhib argagixisa oo mataqaana aad u foolxun oo ummadda ku dhacay marka ayna dhageysanayso maartay waxyaalaha dadka muslimiinta ay tabanayaan marka arrin fiican bay ahayd muslimiintuna waxay tabanayeen oo dhan iyo cabsidii qabeen way u sheegeen iyadana marka way la noqotay wixii mataqaana marka ay dhageysatay ee maqashay dad badan masaajidka waxay ku xiriirin jireen inay ku xirnaayeen dad argagixiso lagu tilmaamay sida wadaadkii Abu Xamsa oo wali xiran ma dhici kartaa in sababtaasi darteed loo bartilmaameedsaday masaajidka run ahaantii Falastiin waxaa jira masaajidka dhibku uu ka dhacay hortiisa kama aha waa masaajid kale oo la yiraahdo Daaru Ricaaya ama Muslim Welfare House oo ka u dhow masaajidkaas oo ah markii taariikhda la fiiriyo masaajidkii badbaadiyay masaajidka hadda Abu Xamsa marka waa isku dhow yihiin waa laba masjid aad isugu dhow marka run ahaantiina de waxa weeyaan mataqaana way dhici kartaa ninkii dhibka geystay wuxuu ka yimid meel fog wuxuu ka yimid Cardiff iyo magaalo fog oo London aan ahayn marka waa laga yaabaa in uu socday oo masaajidka inuu gaaro uu rabay oo dadka dib u geysto intuusan gaarinna dadkii masaajidka soo baxay uu dhibka u geystay way dhici kartaa maadaama masaajidkaas uu yahay masaajid ku xiran sida ay sheegtay Abu Xamsa al-Masri iyo taariikh hore oo mataqaana ay ku tilmaameen inay argixisay xukum jirtay dadka dhaawacmay waxa ku jira dad Soomaali ah tiradooda waa imisa dhaawacyadooda hadda sidee u soo bogsoonayaan run ahaantii horta hal qof baa dhintay oo Bangladesh oo kamid ah muslimiinta oo 6 ilmood ka tagay inta kale waa dhaawac Soomaali bay u badan yihiin ilaa 7 qof waa Soomaali hal waxa ku jirta mataqaana islaan Soomaaliyeed ku jirta iyadana maanta ayay ka soo baxaysay isbitaalka xogaa lug bay ka jabtay marka insha Allah macnaha inta kale dhaawacoodu iska yar inkastoo dhib culus uu gaaray way ka soo kabanayaan
waa mahadsantahay. kaasi waxa uu ahaa maxamed sheekh aadan oo xubin ka ah guddiga sare ee ururka muslimiinta Britain isla markaana ka mid ah maamulayaasha masaajidka Finsbury Park ee uu ka dhacay weerarka dhawaan ee magaalada London. waa mahadsantahay maxamed. adaa mudan Falastiin. dowladda Soomaaliya ayaa Muqdisho waxa ay ka wadaa qorshe hubka dhigis ah oo ay ku doonayso in ay ku xasiliso amniga magaaladaas, balse qorshahan weli dowladda uma suuro gelin inay ku joojiso qaraxyada iyo weerarada ay geysanayaan kooxda ururka Al-Shabaab oo inta badan dadka rayidka ay ku dhintaan. haddaba howlgalka hubka dhigista iyo waxa uu soo kordhinayaba waxaa warbixintan Muqdisho nooga soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. muqdisho xilligan waxaa ka socda howlgallo lagu xaqiijinayo amniga. dowladda Soomaaliya waxay howlgelisay ciidamo gaar ah oo ka kooban booliis, military iyo nabad sugid, kuwaasi oo lagu magacaabo ciidamada xasilinta Muqdisho. ugaas Axmed Xaaji Xasan Liibaan wuxuu ka mid yahay dadka degan Muqdisho. waxa uu sheegay VOA inuu jiro isbedel la taaban karo marka loo eego ciidamadii hubaysnaa iyo gaadiidka dagaal ee wadooyinka dadka risaasta ku furi jiray. taaniyo aad iyo aad baa looga nastay. annaga waxaan u badannahay sideenaba meeshaan la yiraahdo Trebian baabuur ciidan military saaran ayaa jidka inta soo maro haddii gaari wax yar hortiisa istaago ayaa waxay ku furayaan xabad. ummadda meesha fadhidaahe way ka nixi jireen. marka tii waa laga reestay. ma arkaysid baabuur cabdibilo maraya jidka. haddaa aragto gaari saaran in mas'uula 4 qoriyo ah ka saaran oo aan xabadna tuurayn si nidaamna wadada uu ku marayo. waxaa kale jira baabuurta la dhigi jiray jidka qarkiisa oo wadnaha farta lagu heestay oo la dhigi jiray baabuurtan dhib ama ay gaarsiiyaan shacabka. baabuurta wadada waa loo diiday. marka wax lagu naaloon karo, laga sheekeen karo, lagu faani karo ayaa ka jira magaalada Muqdisho bariyahan. nuur axmed xasan wuxuu ka faalloodaa siyaasadda Soomaaliya. wuxuu qabaa in hanaanka xukuumadda ay ku wajahayso hubka dhigista Muqdisho ay tahay mid aan lahayn qorshe qaran iyo raac dambe. hadda kulley ma maqal aniga istaraatiijiyad ama siyaasad qaran oo guud oo dawladdu ay arintaas ka leedahay. laakiin waxaad moodaa in arinta dhibaatada amni darree jirta darteed in wixii aad moodo inay maaragtay ay wixii oo dhan maaragtay hoosta iska soo galeen. matalan hubka dhigis markii la yiraahdo waxa loo baahan yahay hubka yaa laga dhigayaa dad badani security-gooda ay maaragtay dawladdu maadaama ayna meel walba gaari karin ay ku ilaashadaan. waxa weeye dadkaasi dawladda u sharciyeysay oo yani maaragtay wasaaradda amniga oo kale ay ruqsad ka haystaan. waxaa jira dad kaleeto oo hubka iyagu lacagtooda kala baxay. ma jirto hadda qorshe la leeyahay waxbaa loo celinayaa dadkaas. waxaa jira dad kaleeto oo iyaguna mataqaanaa sidaas oo kaleeto amni darro iyo qas ku wada. marka wixii oo dhan waa isdhex yaacsan yihiin. waxay u baahan yihiin marka siyaasad qeexaysa oo kala saaraysa oo category leh oo mataqaanaa aad u bayaansan ay u baahantay. axmed diini wuxuu ka mid yahay ururada bulshada rayidka ka jira Soomaaliya. waxa uu sheegay VOA inuu jiro isbedel la taaban karo balse loo baahan yahay in hanaanka xasilinta hoos loo daadajiyo oo dadka dhan ay ka qayb galaan. anu ma dhahayo hubka dhigis laakiin waxaan leeyahay xasilinta magaalada waa arrin loo baahan yahay laakiin waxa baan geedeen hoos u daadegto oo ay ahayn guddi sare iyo maxay ay ahayn geedii hoos u degto ilaa degmo ilaa meel hoos u degta meesha ayaa loo baahan yahay. oo waxa loo baahay xarumihii stationada inay shaqeeyaan oo ay hoos yimaadaan nimanka amniga hoos yimaadaan oo maxay helaan. laakiin hadda waxa weeye ciidanka ku hawlan xasilinta magaalada haddii bilaadan qalad baa ka dhacaya haddii ay qalad geystaan halkee la tagayaa. laakiin haddii aan la wada shaqayn niman hoos yimaadaan degmada ama deegaanka hoos yimaada waxayna stationka la tagi lahaa. hadday dad wax ka dareemaan qalad wax dhacaan waa in station la geeyo. dowladda Soomaaliya ayaa horaantii bisha barakeysan ee Ramadaan ka bilowday Muqdisho barnaamijka xasilinta taasoo lagu baarayo laguna adkeynayo amniga magaalada. ciidamada ammaanka ayaa taagan wadooyinka Muqdisho waxayna hubinayaan gaadiidka qaybihiisa kala duwan. Cabdulqaadir Okay, qubanaha VOA, Muqdisho. bisha Ramadaan ee sii dhamaanaysa ayaa Mareykanka iyo meelo kaleba waxay ku soo beegmaysaa xilliga xagaaga oo meelaha qaarkood la soomayo inta u dhaxaysa 16 ilaa 20 saacadood. haddaba dhakhtar ku sugan magaalada Philadelphia ee dalka Mareykanka ayaa sameeyay shukulaato cusub oo dadka soomaya siinaysa tamar si ay ugu adkaystaan saacadaha badan ay soomayaan. Ana
budianto ayaa warbixintan Philadelphia ka soo dirtay. Xuseen Barre Aadan ayaa soo koobaya. Dr. Imran Bosner iyo saaxiibkii Farid Sanders ayaa aasaasay shirkadda Fajr Foods, waana shirkadda soo saartay cunnadan loo yaqaano Ramadan Bar oo ah cunno fudud oo sida chocolate-ka oo kale ah. waxa ugu weyn aan culayska saarayno ayaa ah inaan muslimiinta ka caawino sidii ay soonka u gudan lahaayeen saacadaha dhaadheer iyaga oo shaqo badan u taallo. cunnadan ayaa laga sameeyey galley, taasi oo dheefshiidkeedu qaadanaya wakhti badan, iyadoo oo qofka uu cuntada kaga maarmi karo wakhti badan islamarkaana uu si fiican u gudan karo shaqadiisa. cunnadan ayaa dhinaca online-ka laga dalbadaa iyadoo la heli karo sannadka oo dhan, laakiin waxaa aad loo iibsadaa bisha Ramadaan sida uu sheegayo Dr. Imran. haddii aad u mashquulsan tahay oo aad wakhti u weyday inaad fadhiisato oo aad wax cuntid, cuntadan khafiifka ah ee diyaarka ah ee Ramadan Bar ayaa ku anfici karta kaana ilaalinaysa baahida. cunnadan ayaa iminka ahaan la heli karaa hal nooc oo ka mid ah, taasi oo leh dhadhanka chocolate-ka, laakiin waxaa la rajaynayaa in noocyo kala duwan la soo saari doono mustaqbalka. dalka koonfur afrika dameeraha ayaa halis ku sugan kadib markii ay dhibanayaal u noqdeen ganacsiga malaayiin dollar gaaraya oo Shiinuhu uu ku iibsado haragga dameeraha. wariyaha VOA-da Anita Powell ayaa warbixintan waxa ay ka soo dirtay dalkaasi koonfur afrika. 8 dameer oo ay leedahay Imbo Michelle ayaa waxa ay yihiin waxa uu qaalisan ay haysato, waana meesha qoyska noloshu ka helo. waxay u adeegsadaan inay alaabta ku rartaan tuulo yar oo waqooyiga ka xigta xarunta dalka koonfur afrika. waxay tidhi waanu jecelnahay dameeraha iyaga maxaa yeelay waa isha keliya ee aanu dakhliga ka helno, la'aantoodna waanu gaajoonaynaa. hase yeeshee xayawaankeeda khatar ayay ku jiraan. 4 ayaa laga dilay horraantii sanadkan, waxaana dhibanayaal ay u noqdeen ganacsi malaayiin dollar oo Shiinuhu uu ku raadsanayo hargaha dameeraha. ninka Michelle ayaa arkay dameeraha jirkooda oo la jarjaray oo yaala tuuladooda mid ku dhow. waxaanu helnay qaybo ka mida dameeraha iyaga, waxaanu aqoonsanay inay dameeraha iyaga yihiin, waayo wejiga ayay ku lahaayeen calaamad cad, maqaarkooduna wuu ka maqnaa. ururka ka hortagga cadowtinimada xayawaanka lagula kaco ayaa sanadkii horeeto waxa uu qabtay 1,000 harag oo loo sii waday dalka Shiinaha, sidaasna waxaa sheegtay Info Mokena oo ka tirsan ururkaasi. Mokeno waxa ay sheegtay in haddii uu sii socdo dilka dameeraha ay dameeraha ka dabargo'ayaan dalka koonfur afrika. 2 sano gudahood ma jiraan wax dameera ahee dalka South Africa. dadka ilaalinta xayawaanka u dhaqdhaqaaqa ayaa waxa ay sheegeen in intii karaankooda ay ilaalinayaan xayawaanka nugul. xarunta Highveld Horse Care ayaa waxa ay badbaadisaa oo ay xanaanaysaa dameeraha dhibta loo geysto. Ashley Ness oo ah sarkaal xanaanada xayawaanka ka shaqeysa ayaa sheegtay in haragga dameeraha lagu kala iibsado in ka badan $500. dalabkan waxa ay sheegtay inuu kor u qaaday qiimaha dameeraha ee suuqada lagu kala iibsado. runtii waxay leeyihiin dabeecadahooda gaarka, waxaanay noqon karaan qayb ka mida qoyska. dadka u dhaqdhaqaaqa arrimahani ayaa dalka koonfur afrika ku boorinaya in uu ku daydo dalalka sida Burkina Faso iyo Niger oo iyagu mamnuucay ka ganacsiga qaybaha jirka ee dameeraha. dalal badan ayaa run ahaantii mamnuucay qalitaanka iyo ka ganacsiga dameeraha. arrintaasina waxaanu u malaynaynaa inay tahay tallaabo fiican oo hore loo qaaday. hase yeeshee arrintaasi ma iman doontaa si xayawaanka wanaagsan loo ilaaliyo. Ridwaano waxaa jira hotel cusub oo dhowaantan la daafuray. wuxuu noqday hotelkan mid caan ah oo dad badanna soo jiitay. maxaad is leedahay hotelkaasi waa uu noqon karaa? wallaahi Falastiin maskaxdeeda waxaa ku soo dhici karta oo kaliya inuu yahay hotel 5 star waxa ay dadku u yaqaanaan, ama intaasoo dhanba ka sii weyn oo waxyaabo aan macquul ahayn ama waxyaabo dadka aanay ka helin hoteelada kale laga heli karo. marka hotelkaasi ma aha nooca loo yaqaano 5 starska ama 5 xidigood leh ee ah hoteelada ugu sareeya iyo mid u dhow toona. hotelkan waxa la yiraahdaa 0 star. 5 star ma aha ama 5 xidigood ma aha, 4 starna ma aha, xataa 1 star ma aha. waa 2 sariirood oo isku dhagan oo meel cidla ah taala dalka Switzerland. buuro dushooda ay taala, habeenkiina xidigaha daawanaysa. waxaa yaala oo dadka degan ay daawadaan
telefishino ama shaashado duq ah oo weliba jajaban aroortiina dadka baadiyaha ku nool ayaa u keena quraac yar oo qudaar ah oo marka ma lacag la'aan lagu degaya haddii babaashu haddii meesha laba sariir ay taalo iyo cirkana la iska daawanayo waxaa moodaa in dabiiciga ama waxyaabaha aan lacag la'aanta ku haysanay inay hadda caan noqonayso adduunyadii in xidigaha la daawaday in banaanka la seexdo Soomaaliya waxay ka ahayd Ridwaan oo wax iska caadi ah marka hotelkan habeenkii waxaa lagu seexdaa $300 waliba arinta cajiibka ah waxay tahay haddii aad hadda istiraahdo hotelkaasi booking gareysa ama dalba inaad soo degto ma helaysid oo wuu buuxaa oo dad badan ayaa soo dalbaday saf dheerna ugu jira oo laakiin meesha uu ku yaala iyo marka la eego dee hawada furan soo wax laga cabsanayo iyo roob iyo ma jiraan miya iyo qabow iyo waxyaabahaas adigu ma seexan lahayd marka hore adigu ma seexan lahayd adigu ma seexan lahayd kula tahay Falastiin waxa cusub laga war doonaa adduunyada aan ku noolnahay waxyaabo badan oo cusub soo kordhi doona qaarna soo kordhay aniga waa isku day lahaa aadan u jeclaa inaan xidigaha daawado waa sheeko aad iyo aad u wanaagsan intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka qubanaha VOA da toddobaadkan waxaana si wada jir idin la socodsiinayay anigoo ah Ridwaan Xaaji oo London jooga iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan oo Washington joogta tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena daawadayaal nabadgelyo